maamulka dawladda hoose degmada Burco ayaa maanta si rasmi ah bulshada ugu ilaamiyay in kaarkii dhalashada ee diiwaangelinta muwaadinka ay keeneen xaruntooda isla markaasna ugu baaqay dadkii isdiiwaangeliyay oo ka maqnaa kaark inay u soo doontaan xarunta dawladda hoose ee Burco waxa kale oo ay xuseen in ciddii aan hore isu diiwaangelin iminka lagu diiwaangelinayo xarunta dawladda hoose isla markaasna laga qaadayo lacag xogayaha dawladda hoose ee Burco Cismaan Maxamed Sheekh iyo ku-xigeenka duqa degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xoday oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yiri danahay maamulka dawladda hoose waxaanu halkan soo jeedinaa xafiiskan aanu joognaa waa xafiiskii diiwaangelinta dawladda hoose waxa halkan yaala waa kaarkii muwaadinka dadka halkan kaararkoodu yaalaan waxaanu u sheegaynaa haddaan nahay maamulka dawladda hoose waa kaarkii dhalashada ahaa ee qofka muwaadinka ay xaq u lahaa inay soo doontaan qodobka labaad ee aanu ku daranaa waxa weeye dadku inay kala fahmaan haddaanu dawladda hoose nahay anagu kaarka dhalashooyinka ayaanu bixinaa oo kan imkaan gacanta ku hayaa kaarka codbixiyaha haddaanu dawladda hoose nahay dadku sida qaalibka had iyo jeer xafiisyada dawladda hoose ayay yimaadaan iyaga oo doonaya kaarkii codbixiyaha marka anagu haddaan nahay maamulkii dawladda hoose waxaan u sheegaynaa u bayaaminaynaa dadka oo u cadaynaynaa inaananu bixin haba yaraatay kaarka codbixiyaha waxa ku shaqale komishanka qaranka anagu dawladda hoose haddaan nahay kaarka dhalashada ayaanu bixinaa kaarkan dhalashada ee horteeda yaala qofku waxa muwaadinka lacag ahaan laga doonayaa 120 kun oo Soomaalilaana inuu bixiyo qofkii aan kuwa ku jirin ee doonaya kaarna waxa uu imanayaa oo uu la soo xiriiraya dawladda hoose tan xogiyuba ka dhawaajiyay ujeedada shirka sharaa'id u qabanay waxa weeye muwaadiniinta reer Togdheer ama degmada Burco ee kaarkoodii ay yaalaan xarunta dawladda hoose xafiiska diiwaangelinta ee aan wali qaadan waxaan ugu baaqaynaa inay soo doontaan oo qaataan kaas waa qodobka kale waxa noo raacay dadweynaha labada xaale iskaga qaldani waxa weeye diiwaangelinta waa kaarkii codbixiyayaasha diiwaangelinta iyo kaarkii dhalashada degmada ee maxay ahayd muwaadinimada labada kaar anagu kaanu bixinaa ee dawladda hoose aad ugu soo hagaagisaan ee maxay ahayd waxa weeye kaarkii diiwaangelinta ee waa kaarkii dhalashada muwaadinimada anagu mahad celinayna cidii qaadatay cidii maxay ahayd kaarkoodii uu imika u dhan yahay arkaysaan imika waxa halka yaalo dhimo waa dadka kaarkoodii u diyaariyay weli aan soo qaadan waana muhiim intaan maanta shirka jaraa'id u qabanay waa taa Mustafa Ismaan magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Burco.